shirka waxa ugu weyn wuxuu ahaa oo muhiimka ah la saarayay nuxurka shirka loo tagayba in iskaashiga la dardargeliyo si loo helo maalgelin saddexda wadan ee wadanka oo markaasna la isu furo dhaqaalaha saddexda wadan waxaana la soo saaray warmartiyeedkaas oo ku xusan yahay in shirka dambe lagu qaban doono magaalada muqdisho ee soo socda haddii la yiraahdo waqtiga la qorsheeyo iyo sidee uga go'an tahay in taageeraan Soomaaliya dib u soo noqoshadeeda amnigeeda madax banaanideeda iyo nabadgelyadeedaba inay dawladda federaalka tahay dawladda kaliya oo wadanka ka talisa oo loogala xisaabtamayo arrimaha Soomaaliya oo dhan waxay kale ku baaqeen in horumar laga gaaro sababtoo iskaashiga gobolka wuxuu u horseedi karaa iskaashi dhaqaale iskaashi ganacsi iyo in la abuuro shaqooyin loo abuuro dadka dhalinyarada ah gobolkan degan si aysan u tahriibin ay u helaan mustaqbal fiican waxyaalahaas oo dhan ayuu muhiim u yahay in iskaashiga dhaqaale gobolka loo helo maalgashi wadamo badan oo caalamka ayaa maanta raba inay maalgashadaan bariga Afrika oo daruuro cusub oo nabada ka uratay